shirkan toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmay ahayna talada wadanka ayaa intii uu suday lagu ansixiyay gudida fulinta ee golaha dhexe oo ka kooban 31 xubnood shirgudoonka hagaya golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo ansixinta xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo madaxweynuhu u magacaabay Ibrahim Ahmed Rabi soo jeediyay in la ansixiyo xubnaha sharafta mudan ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan magacaabidda Ibrahim Ahmed Rabi oo xogayaha guud ee golaha dhexe xisbiga kulmiye shanta sano soo socda intii oo gacanta taagto xogayaha guud ee xisbiga shanta sano soo socda inta oo gacanta taagto geesta kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo jeediyay in la ansixiyo shirgudoonka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye doorashada kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe ku-xigeenkiisa iyo xogayaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye barnaamijkeeni baynu halka ka sii wadanaynaa mar labaadna anagoo shirgudoon ahaan isku dhan waxaan idinku hambalyeynaa doorashada noo doorateen ee aana karaamayseen ilaahay ha idin karaameeyo sidaa noo karaamayseen hambalyo ayaanu idin leenahay shirgudoon ahaan mudanayaal iyo marwooyinba aad baan idinku mahadnaqayaa inaad mar labaad noo doorateen shirgudoonka aad noo soo ducaysaan in ilaahay shanta sanadood soo socota nagu waafajiyo waxaa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faaraxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed wasiirkii hore ee maaliyadda Marwe Samson Cabdi Aadan kana mid ah gudida fulinta ee golaha dhexe waxaynu sameynay waxa weeye wixii kulmiye lagu yiqiin waxa weeye waa hambalyeena waxaynu isku dardaaranay waxa weeye xisbinimada inaynu ilaalino oo sidaa aynu sharafta leh magaca leh ee aynu ku dooranay xubnihii inagoo aan buuq iyo hadal jirin waxaan aad u hambalyeynayaa dadka ka soo qayb galay waxaan marka hore aad u hambalyeynayaa shirgudoonka aynu saaka u dooranay inuu inoo noqdo shanta sanadood ee soo socda shirgudoonkii hagi lahaa golahan horena inoogu ahaa shirgudoonkii si wanaagsanna inoogu soo qabtay inta ay xilka hayeen shirarkii golaha dhexe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha wasiirada golihii dhexe kulmiye si sharaf leh oo nidaam leh maanta u wada fadhiya shirkoogii dhamaystay doortay golayaashii ay dooranayeen si sharaf leh u doortay aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa golaha dhexe wuxuu dejiyaa wuxuu fuliyaa go'aanadii shirweynaha oo ku kantaroolaa gudida dhexe iyo xukuumaddaba golaha dhexe mas'uuliyaddiisa koobaad waxa weeye inuu hirgeliyo aragtida ama hiraalka fishanka xisbiga ee golaha shirweynihii gudoomiyey xeerkiisuna qeexayo inuu hirgeliyo waa mas'uuliyadda golaha dhexe aragtida shirweynuhu tilmaamay waxa waajib ka golaha dhexe inuu qoraal ka sameeyo oo uu u bedelo siyaasad taasoo noqonaysa manifestada xisbiga ku gala doorashooyinka isla golaha dhexaana hubiyo inay xukuumaddu ku socoto manifestadii xisbiga golaha dhexe wuxuu hilaadiyaa uu qorsheeyaa doorashooyinka muddaysan ee soo socda ciddii xisbigu uu sharixi lahaa xilalka kolba doorashada u taagan madaxtooyo baarlamaanka iyo dowladaha hoose golaha dhexe ayaa laga rabaa inuu curiyo sharciyada iyo nidaaminta iyo xeerarka lagu soo xuli karo dad qaranka u qaban kara hawsha xisbigana xilka u gudan kara oo ummadda la horgeeyo oo doorashada ka soo baxa golaha dhexe waxa saaran oo xisbiyada hawsha ugu weyn uu haya ah inuu curiyo sharciyo la geyn karo loo gudbiyo golayaasha sharci dejinta oo qaranka mustaqbalkiisa wax ka bedeli kara hadday tahay sharciyo saameeya bulshada
hadday tahay qaar saameeya nabadgelyada hadday tahay sharciyo saameeya horumarka dhaqaalaha hadday tahay qaar saameeya siyaasadda dibadda intaba golaha dhexe waxaa laga rabaa inuu curiyo oo xisbi ahaan u soo diyaariyo oo fulinta mariyo oo xukuumadda mariyo dabeetana loo gudbiyo baarlamaankana xildhibaanada xisbigu iyagoo kuwii wax ka soo celiyo xisbigoodu keenay ay sharciyada qaranka ka hirgeliyaan